munaasabad lagu xusayay nabigeena udgun calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabtay xeryaha qaxootiga ee Dadaab. xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galeen kumanaan shacab oo iskugu jiraan habeen, caruur, culmaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn waxaa halkaa lagu soo bandhigay qasiidooyin lagu weyneenayay nabigeena udgun calayhi salaatu wasalaam. Sheekh Abdullaahi Sheekh Aadan oo kamid ah culmaadiinka xerada qaxootiga Dhagaxley ayaa ku fogaaday taariikhda nabigeena udgoon. ikhwatal a'izaa waxaan ku jirnaa bishii mubaarakada ahayd oo barakaysnayd bishii uu dhashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhaxdeeda. bishan ahmiyad aad u weyn ayay leedahay, muslimiinta dhaxdoodana ahmiyad aad u weyn bay ku leedahay, adduunka oo dhan ahmiyad aad u weyn bay bishan u leedahay. maxaa yeelay waa bishii koonkan iyo khalqiga ilaahay kii ugu fadliga badnaa dhexdeeda u dhashay weeye, oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam khalqiga ilaahay haddii uu jin yahay iyo hadduu insi yahay iyo hadduu malag yahayba nabi Muhammad ba calayhi salaatu wasalaam ugu fadli badan, waana bil ijmaac weyn. habeenkaasna waxaa soo dariyey nuur aad u weyn badan baa soo dariyey, oo dhalashadii uu habeenkii uu dhashayba waxaa iftiimay nuur aad u weyn badan ilaa laga dareemo busra shaam iyo meelo la mid ah iftiinkii nuurkii laga arko. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam nuurkii habeenkaas ifay ilaa yawmina hada ninkii alla u shiday waa u shidan yahay, ninkii gaar ahaan rumaynin baa nuurkii ka dadan oo basiiradii qalbiga ile mooyaan inta kale ta nuurkii waa u ifahayaa waa u shidan yahay. marka nuurka inta la eg habeenkii uu soo dariyay habeenaha inoola mid ma noqonayo, maalinkeeduna maalmaha inoola mid ma noqonayso. guud ahaan mararka barkood in habeen u dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la iska idlaaqaa, laakiin xaqiiqa ahaan maalin buu ahaa. maxaa yeelay intuu waagu bariyey yoom ithniin aha oo bishan rabiicul awwal ama mawliidka inagu aanu naqaano Soomaali ahaan, bishaas 12 markay maraysa say culimadii mufassiriin iyo qayrba ay yiraahdeen yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyada oo salaadii subax ay dilaacday, mugdigii habeenkuna wali u baaqi yahay oo xidigihii iyo wixii ay joogaan, mugdigii habeenkuna u baaqi yahay baa nabiga calayhi salaatu wasalaam yoomka ithniinta la dhalay. ugu dambeyntii culmaadiinka xerada qaxootiga ee Dhagaxley ayaa aad u soo dhabeeyay ixtifaalka nabiga. sidoo kale waxa uu sheegay in xafladda ay ku soo dhamaatay si nabad ah. العالمين waxaan joognaa maanta kaamka xerooyinka qaxootiga Dadaab. waxaan dhigaynay ixtifaalka nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxay inoo dhacday si nabadgelyo ah oo amaan ah oo wanaag badan oo qurux badan. waxaan u malayn intii aan joognay xerooyinka Dadaab maalintii ugu qurux badneed ayaad moodaa uguna dad badneed. waxaa socday kumanaan qof ayaa socotay oo lagu tilmaami karin xitaa boqolaal. waxaan nala socday amniga iyo dawladda dhammaan way nala socdeen, madaxda nala socotay, culimaadiinka nala socday. si waxay u dhacday macnaha warbaahinta qaybaheeda kala duwan baa nala socday. si waxay noogu dhacday sharaf ah oo aad u qurux badan. wareeg dheer oo aad u muhiimsanna waan soo marnay. waxaad moodaaba maanta inay macnaha la dhihi karo xitaa qaab aan hor loo arkin bay u dhacday quruxdiisa iyo ma artay nidaamkiisa. alxamdulillah haddana gabagabadiisii baan joognaa. teeladii iyo hawshii dhammaan bay noogu dhacday. sadaqaad fara badan ayaa lagu bixiyey meeshaan. ma artay macnaha xoolo fara badan baa la sadaqeeyey, wax la cunay iyo wax cayriin lagu bixiyey. alxamdulillah. Xasan Kaafi, Badacas 24 TV.